bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada tutorialka faa'iida aqoon maanta waxaan ku baranaynaa casharkeena cusub oo aan ku qaadanayno excel accountiga ama excelka sida loogu xisaabsado ama excelka sida loogu qaybihiisa iyo wuxuu ka kooban yahay casharkeena ugu horeeya ee excelka aan ku baran doono waxa weeyaan introductionkiisi marka ugu horeysa marka ugu horeysa intaanad gelin excel waa inaad sameysaa inaad ka tagi kartid start adigoo qabanaya kabacdina aad halkaa ka soo raacaysid all program halka haddaad ka weydid waxaad tagaysaa all program ba tagaysaa kabacdina halkaa hoos baad usoo riixaysaa saas adoo fladha soo qabanaya waad soo jiidaysaa halka waxaad ka eegaysaa haddii aad ku cusub tahay weeyaan amba aanad garanayn meel aan laga tago excelka accounti oo waa introductionkiisii ama basickiisii weeyaan halkaasaad soo maraysaa waxaad ka eegaysaa halka Microsoft Office-ka aad isticmaalaysid ayaad halkaa ka dooranaysaa Microsoft Office 2013 kaas ayaan baran doonaa marka saas laba jeer u kala garaysanaysaa halkan waxaad ka sii dooranaysaa Microsoft Excel-ki ayaad halkaa ka dooranaysaa saas laba jeer u kala garanaysaa Microsoft Excel ayaa saa ku soo baxaya haddii kale oo uu ku yaalo desktop-ka ama uu ku yaalo halka hoose ee title-ka hoose waxaad ka dooran kartaa halkaas u kala garanaysaa marka saa u kala garaysid wuxuu ku soo dhigayaa Excel-ki oo caadi ah ayuu ku soo dhigayaa sidaas ayuu soo furmanaya markuu soo furmanayo ayuu saa soo dhaxayaa waxaana tan iska xidha waa pop up waxaan wax dhibaato ma leh kuma soo dhigaya adiga markuu Excel-kaagu uu caadiga yahay wuxuu soo dhigayaa halkaas ku soo dhigayaa markuu Excel-ku caadi ku soo furmo wuxuu ku soo dhigayaa warqadda maran oo qaybaha soo kala halka Excel-ka xariiqimaha jiidan ama blank workbook la yiraahdo blank workbook kaas ku soo dhigayaa ay ku soo dhigayaa intan kale aad imika uma baahnid markaad advance ka tahay intana waa ka raalaha inta kale uma baahnid aad markaad advance ka tahay baad isticmaali kartaa sidana kuwana sida loo isticmaalo casharada ugu dambeeya ayaan ku baran doonaa oo waxa soo fara badan laakiin imika uma baahnid waxaad u baahan tahay kaliya Excel-ka qaybta blank ay ku qorantay blank workbook ayaad ku dhufanaysaa marka saa laba jeer u kala garaysid wuxuu ku soo dhigayaa Excel blank workbook haddii mid kale hore u furnayd version hore ayuu waxa ku soo dhigayaa close baa iska oranaysaa halkana waa iska xidhaysaa wuxuu ku soo dhigayaa warqadda sheetkaas ayaa la kala qaybiyaa oo loo yaqaan magacyo qaybta ugu horeysa waxa la yiraahdaa waa Excel loogadiisii ama calaamadiisii dhinaca title-ka intaasna waxa la isku yiraahdaa intaan waxa la isku yiraahdaa quick tool baa la isku yiraahdaa halkana title name intan badanna waxa la isku yiraahdaa aysaa markaan u eegno inta u qeexno waxa la isku yiraahdaa ribbon bar baa la isku yiraahdaa xagana name box baa la yiraahdaa kabina formula barki baa dhinacana la yiraahdaa ama insert function hag laga gelinayo weeyaan qaybta xarfaha ku qorantay a b c d waxa weeyaan column a b c d waxa weeyaan column row marka la leeyahay column baa qaybta la yiraahdaa a b c d da ku qorantay rowna marka la leeyahayna waa qaybtan chiefta ee saw chiefta 1 2 3 ku qorantay a b c d na column-ka taagan kuwa saw taagan ama inta saa u dheer waxa la yiraahdaa column inta sidan u dheerna waxa la yiraahdaa row baa la yiraahdaa amba 1 2 3 kaas lagu garaa wixii 1 2 3 na waa row kuwaasuna column tan si deeply u sii sharaxno maanta introduction yahay marka soo qaadaysid qaybihiisin waxa la yiraahdaa qaybta ugu horeysa waxaan bixinay waa office button-kaas weeyaan office button-kiisa weeyaan qaybtan ku xigta ee sida markaan u salti karin waxa la yiraahdaa quick access tool baa la yiraahdaa flower baa saas noqonaysa quick access tool baa qaybtana la yiraahdaa waa saddexdaas halka access-ka tool ama tool-ka aad si dhaqso ah u isticmaali kartid si degdeg ah oo si dhaqso ah la yiraahdaa xagana documentiga magaciisa iyo Microsoft Excel-ka soo baxaya waxa weeyaan title baa la yiraahdaa ama documentiga furtid book 1 baa furan ama book 2 title magac baarkiisa weeyaan title bar baa la yiraahdaa marka la isku daro intan hoos oo dhan saa hoosta loo calaamadiyo ilaa intaas oo dhan waxa la isku leeyahay ribbon baa la yiraahdaa ribbon bar baa la yiraahdaa ribbon menu qaybtan waxa la yiraahdaa formula la yiraahdaa oo waxa weeyaan qaybtan ku sheegay waxa qaybtan weeyaan qaybta hoos weeyaan qaybta formula ku sheegay waa qaybtaas ayaa formula la yiraahdaa qaybtan intan oo dhan waxa la yiraahdaa ku sheegay waa ribbon-ka kaasuna waa title bar ku sheegayna markaad qaybtan kalena waxa la yiraahdaa wata a waa axis markuu sida uu noqdo color-kaas waxa la yiraahdaa a axis
excel active cellka ku active ka ayaa sida huruuda noqonaya mar walba oo sidoo ku noqonaya waxa weeyaan iminka tan saagaliyo waka cellkaas waa active cell baa la yiraahdaa cellka labada dhinac buu soo noqonaya color buu yeelanaya marka uu ku active gareysan yahay meel walba hada kale cellka ku active cell baa la yiraahdaa halkaas column L iyo row 7 ka marka qaybta kale halkana name box baa la yiraahdaa name box waa halka magaca lagu qorayo name-ka ama box-ka ku sheegayo waxay yihiin name box waa qaybtaas L iyo 7 oo kala ku qoranta waa name box ayaa qaybtana la yiraahdaa qaybtan kale waxa la yiraahdaa ee kale intan oo dhan waxa la isku yiraahdaa marka saa loo eego waa row-gi waa row header-ki 1 2 3 waa row-gi ABCD da suna waxa weeyaan column head-ki title-kiisi column-ka workbook baa la yiraahdaa ama worksheet ama spreadsheet intaas oo magacba waxa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa marka san loo soo yiraahdo adiga oo taabanaya halka as bartaas baa soo klik gareynaysa marka soo klik gareysid si aad ula socotid wax kasta soo gelino layman kan cadays dhaafay ayaa la yiraahdaa worksheet spreadsheet oo excel magacaba inta qaadato waytan ama waxa soo dhanba intaas magacaba la yiraahdaa markaad soo eegtid xagan kalena waxa la yiraahdaa vertical iyo horizontal bay kala yihiin vertical up and down or scroll down weeyaan qaybta kalena waxa weeyaan sheet tabs baa la yiraahdaa sheet tabs oo waa qaybta hoose sheetkaas sheet tabs la yiraahdaa sida sheet kulba sheetka doon sheet 1 sheet 2 sheet 3 saas u doonaysaa qaybtuna waa column kaas la yiraahdaa column hoose bay soo degaysaa waa row gaas vertical row xagga hoosena waa horizontal kiis waa xaggan iyadana horizontal column bala iyo horizontal vertical iyo horizontal bay kala yihiin qaybtuna waa zooming kiisi soo dhaweyntiisi oo kolbaanba way yareynaysaa amba way weyneynaysaa midhaha oo ku soo dhaweynaysaa amba ka yareynaysaa qaybtana waxay ku sameynaysaa big brick bay ku sameynaysaa way kala jabinaysaa liidad yar ay ku sameynaysaa pages-kaagii way kala goynaysaa qaybta kalena waxay ku sameynaysaa big ku soo celinaysaa way kala qaybinaysaa xaashiyo fara badan bay ku qaybinaysaa oo qaybtaasna gaar baad ugu qoran kartaa qaybtana gaar baad ugu qoran kartaa qaybtan hoose markaan tagayno halkay ugu hormaad ku soo celinaysaa taa hoose taxad baad taabanaysaa saas ugu soo noqonaysaa waxa hoose uu ku sheegay waa sheet tabs-kaas qaybtana horizontal scroll down iga tusay vertical shortcut baa la yiraahdaa shortcut-ka vertical-ka uu sameynaya view shortcut-ka aragaas iyo shortcut-kiisa ku sameynaysaa start bar baa la yiraahdaa waa qaybta ugu hooseysa ee title-ka ayaa la yiraahdaa start bar qaybta hoose ready ay ku qorantay waa la yiraahdaa start bar waxa kale oo jirta iyadana intaas oo dhan buu kala qaybsamayaa excel-ku cell wax kale oo la yiraahdaa tira cell-kana waxa la yiraahdaa cell-ka waxa la yiraahdaa marka saa u kala garayo barta uu afarta gees iskaga yimaadeen ayaa cell la yiraahdaa halkaas ku soo gabagabeynaa tutorial-kan aan ku qaadanayna excel introduction-kiisii hore oo aan doonayno inaan bilowno oo aan ka dhigno ilaa waxoogaa dhowr cashar si xisaabta u fahmaan excel-ku aad buu muhiim yahay qof kastoo xisaabiya shaqaale amba shaqo qabanaya excel-ku waa laga maarmaan marka sidaas ayaan maadaama muhiim u yahay bulshada aan u doorbidnay inaan dhowr cashar ka sameeyno si tutorial-keenu on gudaan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.